sida aan wada ogsoonahay waxaa bulshadeena ka mid ah qaybo badan oo maqalkoodu maqan yahay kuwaasi oo u baahan inay ka faa'iideystaan xuquuqdooda aasaasiga ah si la mid ah xuquuqo ay helaan bulshadeena caadiga ee maqalkoodu dhameystiran yahay sida waxbarashada caafimaadka ka faa'iideysiga fursadaha shaqo helidda xogaha iyo isgaarsiinta iyo wixii la mid ah waa urur dhalinyaro oo isu aasaasay sidii ay ula jaanqaadi lahaayeen bulshadooda caadiga ee laxaadkooda u buuxo sida horumarinta waxbarashada iyo aqoonta kor u qaadista heerka khibradda nolosha iyo wixii la mid ah dadka maqalkoodu dhiman yahay ama uu ka maqan yahay gebi ahaanba waxaa la sheegaa in la dhaxlo qiyaas ahaan 75 ilaa 80 waa lagu dhashaa waxaana la sheegaa sidoo kale inay ku timaado hidaraac magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalidana waxaa ku nool dad badan oo maqal kala oo isugu jira dad waaweyn dhalinyar iyo caruurba markanina waxa aan booqasho ku tagnay xafiiska ururka horumarinta dadka maqal kala ee deegaanka Soomaalida iyo waliba goobo wax lagu baro dadka maqalkoodu dhiman yahay ee ku nool magaaladani Jigjiga dhammaan dadkani halkan jooga oo dhani waa dad maqal kala oo aan waxba maqlin bara iyo ardayba macallimiinta iyo ardayda joogta xaruntani waxa ka dhaxeeya isfahankaasi oo ah mid aad u sareeya maadaama ay dhamaantood ay ka mid yihiin dadka maqal kala ee ka mid ka ah dadyowga tirada badan ee baahiyaha gaarka ah qaba Abdifataax Ahmed Maxamed waa macallinka ardaydani ahna gudoomiyaha ururkan horumarinta dadka maqal kala ee deegaanka Soomaalida isagana maqalkiisu waa uu dhiman yahay luqadda aan isku fahmayno aniga iyo isagu waa qoraal oo kaliya gudoomiye Abdifataax ayaa ardayda siinaya cashiro isaga oo isticmaalaya luqad iyo tilmaamo ay isku fahmayaan ardayda iyo dadka maqalkoodu u dhiman yahay goobtana waa goob lagu baro ardaydani maqalkoodu dhiman yahay maadooyinka asaasiga ah sida xisaabta Soomaaliga Ingiriiska iyo waliba kombiyuutarka dhammaan ardaydani oo intooda badan ay yihiin gabdho waa dad maqalkoodu dhiman yahay laakiin isugu jira kuwa hadli kara iyo kuwa aan hadli karin waxaan la sheekaysanay qaar ka mid ah ardaydani waxayna inooga warbixiyeen waxyaabaha ay halkani ka bartaan cidda ka gacan siisa waxbarashada iyo waliba fariinta ay u dirayaan dadka maqalka leh ee aan ka faa'iideysan fursadaha waxbarasho ay heleen iyagu magacaygu waa Khadaan Cumar weey magacaygu waxbarashada waxaan barabanaa kombiyuutarka 6 bilood ka hor dhogoolayaasha 6 bilood ka hor bay bilaabeen dhogoolayaasha deegaanka Soomaalida ku nool dhammaantood waa inay iska soo diiwaan galiyaan ururka oo ay sidaa ula socdaan ururku insha Allah haduu ilaahay waxaan soo wada maraynaa gobolaha waa mahadsantihiin magacaygu waan Macali waxbarashada waxaan bilaabnay 6 bilood ka hor waxbarashada si fiican ayay u barteen si fiican baynu u fahmeen waana wadaynaa ilaa mustaqbalka Ingiriiska waxaan baranay luqadda Ingiriiska iyo kombiyuutarka iyo af Soomaaliga iyo si fiican ayaan u baranay oo aan u fahmay waxbarashada si bilaash ayaan u baranaa xafiiska dhalinyarada ayaan naga caawiya waan ku faraxsanahay maanta maadaama bahda arinta fiican soo booqay magacaygu waxa weeyaan Cadnaan Xasan dhogoolayaasha dhammaantood way badan yihiin way joogaan waxaan baranaa kombiyuutar waxaan bilaabnay 6 bilood ka hor waxaan baranaa Soomaali Ingiriis iyo Sign language iminka tababarku uu soo dhamaanayaa wax yar baa noo haray wax yar kadib waan qalin jabinaynaa dhammaan deegaanka Soomaalida iyo shacabka iyo dawladda waxaan u baaqaynaa inay garab istaagaan waalidiinta dadka maqalka qala deegaanka ku nool waxaan u baaqaynaa inay dhamaantood caruurtooda ay halkan keenaan ku xidhnow lana wadaaga asxaabtaada afaaladaadu waa muhiim Dagara Media waa saaxiibka dadweynaha